السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kulanti wacan oo wanaagsan asxaabe meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada janalka imhot maanta waxaan sharxi doonaa sida loo bedelo facebook password ama passwordka facebookkaaga cashirka ka horeeya waxaan kusoo sheegnay sida lagu ogaado in facebookkaaga lagula isticmaalayo in kale mar haddaa ogaatid in facebookkaaga lagula isticmaalayo meesha waxaa ka cad in passwordkaaga la yaqaano marka waxaad ku khasban tahay in passwordkaaga aad bedeshid saa u bedesho passwordkaaga marka isaabadan raac marka koowaad facebookkaaga soo kacso markaad soo kacaysa kadib waxaad taabataa saddexda calaamadood ee geeskan kadib hoos u soco waxaad taabataa setting and privacy kadib waxaad taabataa qaybta setting kadib waxaad taabataa qaybtan security and login ay ku qoran tahay kadib waxaad taabataa qaybtan ay ku qoran tahay change password kadib waxaa kuu soo baxayaan saddex qaybood oo ama ciwaankooda uu yahay change password qaybta koowaad oo ah current password waxaa gelisaa passwordkaagii hadda oo facebook aad ku isticmaasho new passwordna waa passwordka cusub laga rabo inaa hadda aad samaysatid ama aad rabto inaad samaysatid qaybta saddexaadna waa dib u geli passwordkaaga cusba ee hadda aad samaysay mid koowaad waa current passwordkayga haddan waa gelisay tusaale hoos imaaw passwordkaaga cusbaa geli qaybta kale ku xigta imaaw passwordkaagii cusbaa mar labaad geli aa gelisay dahay intaa kadibna waxaad samaysaa save changes leh save changes markaa dhahday kadib passwordkaagii sidaas ayaad ku bedashay hadduusan kaa qaldanin passwordkaagii hore marka cashirka ku xigi doona waxaan sharxi doonaa sida xitaa haddii qofka passwordka uu yaqaano uusan ku isticmaali karin ama uusan soo geli karin facebook akoonkaagii ilaa adi amra ka siisid marka cashirka xiga la soco janalkana subscribe gareeya oo aadna ku mahadsantiin daawashada videogani